ما la socotaa ciidanka militariga maanta hal guuto dagaalami karta inaysan ku jirin maanta murtidin waxay leeyihiin hal urur oo maanta dagaal gashan waa leeyihiin Shariif Sheekh horta waxaan u sheegaynaa shalay waxay wada ahaayeen qiiq iyo qorigiis dalka Soomaaliya ninka soo galiyay maafiyada oo dadka iyo dalka Soomaaliyeed u hoosaasiyay horta adiga u ahay shalay waxa ogaataa hal qof oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo ay dilaan oo ay dhiigiisa ay daadiyeen ay hore u daadiyeen nimankaas maafiyada qayba kule dhiigiisa waxa ka soo gaaray sababtoo adiga ayaa aasay waxa la yiraahdaa Qaabil iyo Haabil ninkii ugu horeeyay wax dilay qof kasta oo bini aadam oo la dilo yani oo la dilo oo caalamkan koonka lagu dilo yani oo la dilo dhiigiisa waxba kule sababtoo qofkii ugu horeeyay tahay adiga waxa tahay ninkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee nimanka noo hoosaasay ee nimanka dalka keenay hal qof oo dilaan iyo qofkay naftooda maalkooda ay dhacaan iyo qofkay dilaanba wallahi billahi Shariif Sheekh Ahmed qayb ku leeyahay waxba ka soo gaaray ninka ugu kabaa'ir badan ugu dambi badan ta Soomaaliya tasti maxkamadda ilu geey waajibkaagu ahay sababtoo waxa sad noo keentay siyaasad markaad soo gashayna maxaa ku ii sheegnaa oo soo gashayna habaar qabihi dadka iyo dalka Soomaaliyeed yani qoodin jiray kaliya noo keentay war waxa habaarana tahay habaar ha kugu dhacay wax habaarana tahay Shariif la soo gamo habaar baatay dadka dalka Soomaaliya afkaaga ka aamus inkaar baa qabtaa waxii balaayada dadka dalka Soomaaliyeed aad u hoosaasay wali la daara dhacaya ay wali dowladnimada Soomaaliyeed la daara dhacaysa markaas hadlaysa war waxa tasti maxkamadda la soo saaro